በሶማሌ ክልል ያደፈጠው የናይሮቢ ቡድን dhawaan waxa soo baxday warbixin muuqaal ah oo laga soo daayay andafta oo lagu magac daray kooxda Nairobi. waxa wariyay warbixintiisa si qoto dheer uga waramay imaanshaha Mustafa iyo sida loo marorsaday isbedelkii iyadoo si farsamaysan looga takhalusay dhamaanba xoogii ka dambeeyay isbedelka. muuqaalkaasi waxa uu banaanka keenay qaabkii Mustafa ku yimid kursiga iyo afduubkii lagu sameeyay isbedelkii iyo waliba halkankii. waxa kale oo iftiimiyay sidii looga beesheegay shirkii diradhawa iyo dhismihii dawladda. markii haddaba ay warbixintaasi soo baxday waxa inta badan shacabka Itoobiya uu ogaaday wajiga dhabta ah ee Mustafa iyo meesha laga soo diray. Mustafa oo taageeradiisa siyaasadeed ee ugu badan ka hela uumiyada maxaarada ayaa warbixinta wariyuhu waxa ay ku eedeysay in Mustafa Fahad Yaasiin taliyaha sirdoonka Soomaaliya uu lacag 5 milyan ah ka soo qaatay, taas oo ku keentay dhaawac siyaasadeed oo uu arkay in ay khatar ku tahay sii joogitaankiisa. taas haddaba waxa ay keentay in Mustafa uu wax walba u sameeyo sidii uu u beenin lahaa warbixintaasi. arrintan oo galgashay maamulka urdinka ah ee Mustafa ayaa durtadbiiba laabay olole ka dhana saxafiga isagoo ka faa'iideysanaya ku laday dhamaanba dadkii uu arkayay in ay siyaasiyan uga soo horjeesteen Mustafa isagoo adeegsanaya barihiisa bulshada oo tiradoodu ay gaadhiso in ka badan 20 ayuu ku eedeeyay in warbixintan ay ka dambeeyeen Ahmed Xasan Baaji iyo Dr. gure Fidaar iyo sidoo kale Abdulfataax Macalin oo uu arkayay in ay hormuud ka yihiin dadka diidan maamulkiisa. waqtiga uu waday ololahani waxa uu Mustafa markiiba u diray Addis Ababa koox yar oo ah la taliyaashiisa ugu sareeya. waxay isu dayeen inay la xiriiraan wariye fanwal iyo taftiraha warbaahintan oo muuqaalka hore soo saaray. la taliyaha ayaa u sheegay in Mustafa ka xumaaday warbixintii ay sii daayeen, sidaas darteedna ay rabaan in TV-gu sii daayo warbixin iyada oo qoraal ah gacanta ku waday. taftiraha ayaa ugu jawaabay su'aalahani: miyaad beeninaysaan wixii aanu sii daynay? diyaar ma u tihiin inaad na siiso waraysi aad kaga jawaabayso waxyaabihii aanu ku soo bandhignay barnaamijka? madood ayaad ka qabtaa sugnaanshaha xogta aan baahinay? Mustafa ama Jamaal Deeriye ma ogol yihiin in ay na siiyaan waraysi? la taliyo 4 su'aaloodba maya ayuu kaga jawaabay, laakiin waxa uu ka codsaday inay u baahiyaan waraaq uu sitay lacagna ay diyaar u yihiin in ay bixiyaan. haddaba wariye fanwal oo ahaa nin uu Mustafa ku tilmaamay inuu fashiliyay isku daygii afgambigii Axmed Shide xilligii ay hayeen, waxa uu ka diiday laaluush loo soo bandhigay. sidoo kalena waxa uu diiday taftiraha telefishinka Andafta kana dalbaday in la taliyuhu ka baxo xafiiskiisa. haddaba muddo ka badan 2 toddobaad ayay Cagjar iyo xubnaha uu soo dirtay wax walba u sameeyeen, meel walbana ay u mareen sidii ay ugu qancin lahaayeen TV-ga in ay ka ogolaadaan in ay muuqaal cusub u soo saaraan, kaasi oo dhayaya dhaawacyadii siyaasadeed ay u arkayeen in uu ku yimid dhanka sumcadda uu ku dhex leeyahay axmaarada, gaar ahaana kuwa aaminsan nidaamkii hore ee lagu yeedho Menelik State. gorgortan dheer kadib waxaa lagula heshiiyey in ay bixiyaan 20 milyan oo bir, muuqaal 5 daqiiqo ahna loo sameeyo. warbixinta ayaa waxaa laga soo qoray xafiiska madaxweynaha, sida aan xog ku helnayna uu isagu gacantiisa ku qoray, muuqaalka lagu lifaaqayna uu isagu gacantiisa ku doontay.
waxaa taariikhdu markay ahayd 17 Sebtembar laga sii daayay warbaahintan telefishinka Andafta waxaana inoo turjumay Cabdulqaadir waxaana inoo akhrinayay wariye Maxamed Cabdi Shakuur. በሀገሪቱ ያሉትና የታዩት በርካታ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ችግሮች እንደተጠበቁ ሆነው በአንጻራዊነት የተረጋጋ የፖለቲካ ሂደት ውስጥ የገቡ ክልሎችም አሉ። ከነዚህ መካከል አንዱ የሶማሌ ክልል ነው። inkasta oo ay sidooda yihiin murugsanaanta xaaladda arrimaha siyaasadda iyo bulshada ee dalku haddana waxaa jira deegaano ku tallaabsaday deegaanasho siyaasadeed marka la barbar dhigo deegaanada kale ee dalka waxaana ka mid ah kuwaas deegaanka Soomaalida. Isbedelka ka hor deegaanka Soomaalidu wuxuu hoy u ahaa xoogag hubaysan waxaana la xasuustaa in ciidamada liyu booliska oo waasaasay Cabdi Maxamuud Cumar madaxweynihii hore ay shacabka deegaanka u horseedeen baraka dil iyo burbur hantiyeed. ከህወሓት ጋር ጥብቅ ቁርኝት የነበራቸው በከፍተኛ ሙስና የተዘፈቁ ክልሉንም ከኢትዮጵያ ለመገንጠል የመጨረሻ ጥረት ሲያደርጉ እንደነበር መረጃዎች ያመለክታሉ። በሀገሪቱ ያለው የጸጥታ መደፍረስ እየተባባሰ በሄደበት ወቅትም በሶማሌ ክልል ሰፊ የሰብአዊ መብት ረገጣ ተፈጽሟል። madaxweynihii hore ee deegaanka Cabdi Maxamuud oo loo yaqaano Cabdi Ilay oo ay xogo badan qabaan inuu xiriir dhow la lahaa ururka Tigreega ee TPLF inuu ahaa mid ku talax tagay hantida shacabka oo uu ku jiray musuqmaasuq baaxad leh. waqtigiisii ugu dambeeyayna wuxuu ku hawlanaa sidii uu deegaanka uga goyn lahaa Itoobiya. waqtiyadii dambe ay soo xumaanaysay xaaladda dalkana waxaa deegaanka Soomaalida ka dhacay tacadiyo ba'an oo ka dhan ah xuquuqda aadamaha. xabsiyadii madooba ee uu samaystay waxaa ku naf waayay dad badan kuwa kalena laxadkoodii ayay ku waayeen. gafafkaas in badan ayay hay'adaha u dooda xuquuqul insaanku ka dhawaaqayeen. iyadoo ay xaaladdu sidaas tahay ayaa waxaa magaalada Jigjiga ka dhacay xasuuqii lagu laayay dadka aan Soomaalida ahayn iyo gubitaankii dabka la suray goobihii diimaha ee kaniisadaha taasoo ay ka xumaadeen in badan oo ka mid ah shacabka dalkan Itoobiya. ክልሉን ለዓመታት በርዕሰ መስተዳድርነት ሲያስተዳድሩ የነበሩት አብዲ ኢሌ ከስልጣን ተነስተው ለሕግ መቅረባቸውን ተከትሎ በሂደት ወደ ስልጣኑ ማማ የመጡት ሙስጠፌ መሐመድ ዑመር ክልሉ ለዓመታት ከናኘበት ቀውስ ወጥቶ ወደ መረጋጋት እንዲገባ በማድረጉ ረገድ ሰፊ ሚና ተጫውተዋል። markii la qabtay sharciga la horgeeyay Cabdi Ilay oo sanado badan ka soo talinayay deegaanka ayaa waxaa majraha deegaanka u qabtay oo hogaaminta deegaanka ku soo booday mudane Mustafa Maxamed Cumar oo qayb libaax ka qaatay sidii kilalku uga bixi lahaa khalkhalkii siyaasadeed ee deegaanku muddada badan la soo daalaadhacayay una noqon lahaa mid xasiloon. ሙስጠፌ የህይወት ታሪካቸውን እንደሚያመለክተው በበርካታ ዓለም አቀፍ ተቋማት በመስራት ሰፊ የአመራር ልምድ ያካበቱ ሰው ናቸው። sida ay tilmaamayso taariikh nololeedkiisa Mustafa wuxuu muddo badan u soo shaqeeyay hay'ado kala duwan oo caalami ah taasoo dhaxal siisay khibrad maamul oo la mahadiyay. Mustafa Maxamed Cumar oo talada deegaanka kula wareegay jagada madaxweyne ku-xigeenimo ayaa ah aqoon-yahan bartay dhaqaalaha isla markaana hay'ado badan oo aan dawli ahayn kala shaqeeyay dhinacyada damaanad qaadka cunnada xoolo dhaqatada iyo beeralayda. sida ku cad taariikh nololeedkiisa waxaana la sheegaa inuu yahay khabiir shaqooyin badan ka qabtay dhinaca xoolo dhaqatada iyo beeralayda. Mustafa ayaa ah mid hawlahaasi ka dhaxlay khibrad maamul wanaag iyo mid hogaamineedba. shaqooyinkaas badan ee uu la qabtay hay'adaha aan dawliga ahayn ayaana Mustafa ka dhigay in qaramada midoobay ay u doorato in uu noqdo la taliyaha qaramada midoobay ee waaxda taageerada arrimaha bini'aadanimada ee dalka Soomaaliya. ሙስጠፌ ቅድመ ለውጥ በነበራቸው የውጭ ቆይታ በሶማሌ ክልል በአጠቃላይም በኢትዮጵያ እንደ ሀገር ይደርስ የነበረውን የሰብአዊ መብት ረገጣ አጥብቀው ሲቃወሙ የነበሩ ሰው ናቸው። ሙስጠፌ ayaa isagoo dalka dibadiisa ku sugan isbedelka ka hor ahaa shakhsi ka soo horjeeday tacadiyadii ka dhacayay deegaanka iyo guud ahaan dalkaba. Mustafa oo leh khibrad maamul oo uu ka helay hay'ado badan oo uu la soo shaqeeyay ayaa ah hogaamiye ka duwan madaxda kale ee deegaanada dalka. Mustafa oo mowqifkiisa siyaasadeed uu yahay mid ka duwan siyaasadda dalka ee tixgelinaysa xuquuqaha qowmiyadaha iyo xuquuqda kooxaha ee madaxda kale ee deegaanadu ay aaminsan yihiin ayaa noqonaya hogaamiyaha kaliya ee ku dhiiraday inuu fagaaraha la soo istaago aragtidiisa siyaasadeed ee ku aadan siyaasadda u xaglinaysa
in xoogga la saaro xuquuqda shakhsiga taas oo uu ku sheegay in ay tahay mid shakhsiga iyo dalkaba anfacaysa waa in shakhsi waliba mowqifkiisa siyaasadeed u soo bandhigto bulshada isla markaana go'aanka loo daayaa shacabka aragtida siyaasadeed ayaa ah mid ka soo horjeeda jihada siyaasadeed ee dalku haatan hayo ee ahmiyadda siinaysa xuquuqda qowmiyadda ama kooxda በአንድ ወቅት በዋልታ ቴሌቪዥን በነበራቸው ቆይታ እኔ የግለሰብ መብት አራማጅ ነኝ። የግለሰብ መብት ተከበረ ማለት የቡድን መብት ተከበረ ማለት ነው። ሁሉም ዜጋ የራሱን ሐሳብ ያዝ፣ የሚያሸንፈው ሐሳብ ነጥሮ የሚወጣበት ሂደቱ ላይ ብቻ እንግባባ ሲሉ ነበር የተናገሩት። ወቅቱ ወሬሲሲ ሙስጠፋ ቲቪጋ ዋልታ አዩ ይሬ አንጉ waxaan ahay shakhsi u ololeeya xuquuqda shakhsiga haddii xaqa shakhsiga la dhowro waxay la micno tahay in la ilaaliyo xuquuqda kooxda cid kastaaba ha soo bandhigto fikirkeeda siyaasadeed laakiin muhiimaddu waa in aan isku afgaranno falraaca uu masraxa ku imanayo fikirka guulaystay aragtidiisa siyaasadeed ayaana noqotay mid soo jiidatay oo ay aad u soo dhaweeyaan xoogaga ay midnimada Itoobiya ku fog tahay ee aaminsan Ethiopian andinad ee ah hal isir hal af iyo hal diin ay boqor Minilik iyo Hayle Salaase u yihiin haliyeeyo sharaf iyo maamuus mudane Mustafa muddadii uu la wareegay hoggaanka deegaanka wuxuu u horseeday deganaansho iyo xasilooni buuxda ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ በሶማሌ ክልል ሀገረ ስብከት በተፈጸመው ኢሰብአዊ ድርጊት ለተቃጠሉት አብያተ ክርስቲያናት ለተጎዱት ካህናትና ምዕመናን ለእርዳታና መልሶ ማቋቋም በሰፊው ድጋፍ ማድረጋቸው ይነገራል። madaxweyne ku-xigeenku dhibaatooyinkii ka dhanka ahaa xuquuqal insaanka ee lagula kacay kiniisadaha deegaanka Soomaalida ku yaala dadkii ku waxyeeloobay ee lagu gubay goobihii cibaadada ayaa waxa la sheegayaa inuu qayb weyn ka qaatay dib u dhiska goobadiimeedkaasi iyo gacan qabashada dadkii waxyeeladu ka soo gaadhayba inta uusan la wareegin xukunka deegaanka Mustafa madaxdii ka horeysay khalkhalkii siyaasadeed iyo rabshadihii dhacay waxa lagu gubay kiniisado waxaana lagu dilay hogaamiyayaal diimeed iyo dad ku xidhnaa kiniisadda iyadoo agab sharafeed kiniisadu lahaydna lagu bililiqaystay arrimahaasi waxay sababeen in deegaanka ay ka qaxaan hogaamiyayaal diimeed fara badan iyo in badan oo ka mid ah maamuladii kiniisadaha xogaha ayaa waxay sheegayaan in 10 kiniisadood la gubay kuwaas oo adeega ay bixin jireen isugu jiray xafiiskii maamulka kiniisadda maqaamkii ugu weynaa ee ay kiniisadu lahayd iyo goobihii dakhli dhalinta ee kiniisadda 8 wadaad oo masaaxiinana waa la dilay boqolaal kristaan ah ayaana ka barakacay guryahoodii iyo goobahoodii cibaadada khasaaraha kadib sidii dib loogu soo celin lahaa noloshii caadiga ahayd ee kristaanka deegaanka ayaa waxaa olole caalami ah laga galay sidii dib loogu dhisi lahaa kiniisadahaas dadkiina guryahooda loogu soo celin lahaa iyadoo la aasaasay khasnad tabarucaad lagu soo ururinayo Mustafa oo dhacdadan cambaareeyay ayaa doorka ugu muhiimsan ka qaatay sidii dib u dhis loogu samayn lahaa kiniisadaha isla markaana loo gacan qaban lahaa dadkii dhibaatadu ka soo gaadhay wuxuuna hiilkan ku helay mahadnaq iyo hambalyo dad badan ay u hayaan iyagoo dadkaasina ay dhahaan Mustafa ka sakow dejinta xaaladda deegaanka waa nin kor u qaaday sumcadiisa siyaasadeed ee heer dal iyo qof hanan kara hoggaanka dalka የተረጋጋና የሰከነ አስተሳሰብና ስብዕና ያላቸው አቶ ሙስጠፌ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኢትዮጵያዊነት የፖለቲካ ፍልስፍና ጋር የሚጣጣም የፖለቲካ አካሄድ ያላቸው አመራር መሆናቸው በስፋት ይነገራል። dadka Mustafa la dhacsan ayaa dhaha waa qof u qalma inuu noqdo hogaamiyaha dalka iyagoo ku tilmaamaya inuu yahay qof degan oo akhlaaq leh waxaana inta badan la sheegaa inuu yahay mas'uul aysan siyaasadiisa ka fogeyn oo ay la jaan qaadayso aragtida siyaasadeed ee ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo ah Ethiopianimo marka laga yimaado dareenka Soomaalinimo runtu waxay tahay in Mustafa iyo kooxdiisu ay boob iyo hanti urursi ku jiraan waxa cad in hantidii ummadda ay koox yar jeebada ku shubatay miisaaniyadii sanadkii uu kursiga joogayna aanay jirin wax lagu qabtay oo dhammaanteed la musuqmaasuqay sidaanu ka dhuwanay muuqaalkan kooban ee 5 daqiiqo ah ee Mustafa uu ku soo bandhigay waxqabadkiisii sanadkii uu meesha joogay kuna bixiyay 20 milyan
mar kaliya laguma soo hadal qaadin waxa uu qabtay deegaanka Soomaalida. 2 jeer oo kaliya ayaa la soo hadal qaaday Soomaali, waxaana ay ahaayeen 2 eray oo laga yidhi Al-Shabaab iyo dilkii Cabdi Iile u geystay Axmaarada. xarunta kaydka dhiigga blood bank fiiq goday hargeysa iyo jijiga ay dhamaadeen 100%. waxaad ku sheegteen in 100% uu dhamaaday mashruuca blood bankiga fiiq. mashruucii dhagax dhigii madaxweynaha ayaa ugu dambeeyay. balaad dhamaashadii lama bilaabin. dal madaxweynuhu uu yidhi annagu maanaan gudbinin, laakiin xafiiska madaxweynaha ayaa lagu compile gareeyaa reportiyada xafiisyada inta laga ururiyo. mistake waa halka mid la sameeyay. annagu reportiga soo jeedinay kaanu gudbinay dib waa loo arki karaa. haddaba waxa isweydiin mudan, Mustafa iyo madaxweyne uu yahay iyay tahay in waxqabadkiisa uu soo bandhigto. waayo cidda ay tahay inuu kalsooni ka raadsado. iyay sugayaan shacabka tirada badan ee ku jira xeryaha sida Qoloji iyo kuwa kale. 20 milyan ee uu ku bixiyay fiidiyoga 5 daqiiqo ah miyaanay mudnayn in uu ku caawiyo shacabkiisa ku jira xeryaha ee gaajada la ildaran. haddaba waxa isweydiin mudan, Mustafa iyo madaxweyne uu yahay